السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعلى ونكسن دقيستيان وكسان لقد دقيستان كسو لبالا برنامج كيني كغا هليني فضائشة بشا بركيسان اي رمضان في كتاب الله ألوان من الحب وبين maalin kasta waxaad ka dhageystaan marka laga reebo maalimaha sabtida iyo axadda radio gargaar madasha arrimaha bini'aadamada barnaamijkana waxaa nagala qayb qaata qaar ka mid ah mashaayikda ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab iyo Faafi barnaamijkan ayaa waxaan ugu magac darnay fadaayasha bisha barakaysan Ramadaan wuxuu daba socdaa barnaamijka waanada sheeqa oo toddobaad kasta aad ka dhageysan jirteen radio gargaar madasha arrimaha bini'aadamada waadna ku mahadsantihiin dhageysiga ila jaanqaaditaanka la jaanqaadaan radio gargaar madasha arrimaha bini'aadamada mujadada FM dhirkeedu yahay 97.1 barnaamijkana maanta waxaan ku lafaguri doonaa haddii eebidmo markaasi tobanka dambe ee bisha barakaysan Ramadaan aynu ku jirno maalinta saddexaad waxaana markaasi lagu jirnaa raadinta Laylatul Qadarka barnaamijkana maanta waxaan kaga hadlaynaa markaasi Laylatul Qadarka ee fadaayisha uu leeyahay barnaamijkana waxaa marti ugu ah Sheekh Cabdixakiin iyo waliba Macallin Bishaar oo markaasi ka mid ah mashaayikda xarada qaxootiga xagga reer barnaamijkan ayaga nagala qayb qaadan doona haddii eebidmo تهب نسائم الرحمات تشفيني من الذنب فأدعو الله يا مولاي يا نجها وأبي وتهي دغستيال si toos ayuu inoogu furmay barnaamijkeenii markaasi kaga hadlaynay fadaayisha bisha barakaysan Ramadaan anigoo maanta aan ku markaasi aan ku falaqayn doono Laylatul Qadarka fadaayisha uu leeyahay maadaama bisha barakaysan Ramadaan maanta ay ku beegantahay 23 taariikhdan ay ku beegantahay 28 May 2019 wadna ku maasantihiin dhageysiga dhageysanaysaan radio gargaar madasha arrimaha bini'aadamada waxaan ku soo dhaweynayaa Macallin Bishaar oo markaasi ka mid ah maqaayadda studio martida nooga ah Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka koowaad waxaan salaan u wada gudbinayaa dhammaan bulshada muslimiinta ah iyo idaacada dhan ayaan u wada gudbinayaa salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bacda tahiyya salaanta kadib saad horeba oo la socoteen waxaa la waday ama laga soo hadlayay ee culimada faraha badan ee kala duwan ee ka soo hadlayeen jazakumullahu khayral jazaa ilaahi khayr ha ka siiyo bisha Ramadaan fadaa'isheeda iyo fadligeeda waxaan insha Allah tabaaraka wa tacaala halkan ka soo jeedin doonaa muhaadara ku saabsan Laylatul Qadriga fadaa'isheeda iyo in bisha ayada ah halkay uga jirtay iyo halkii laga raadin lahaa iyo calaamadaha lagu garanayo Laylatul Qadriga wixii culimada ka dhaheynayaan waxaan jeclahay insha Allah tabaaraka wa tacaala inaan inta ilaahay iga garansiiya ayaan wax ka tilmaamo walaalayaal waxaan ku jirnaa tabankii dambe ee bisha Ramadaan ee fadliga badaneed ee bisha Ramadaan kamid ahayd ayaan ku jirnaa bisha Ramadaan 30 bari ayay ahayd ama 29 bari 20 baa dhamaatay hadana waxaan ku sii jirnaa tabankii u dambeeyay ayaan ku sii dhex jirnaa waxa la doonayaa marka bishaas Ramadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waa fursad ilaahay uu siiyay dadka muslimiinta ah ilaahayna ugu talagalay subhanahu wa ta'ala in ay ka faa'iideystaan dambiyadooda iyo wisrigoodana ay dhaafaan maartay loogu dhaafo ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay maxay walaal waxaad ognahay dhamaanteena inaan wada laaban doono ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa loo laabanayo qof kastaana wuxuu adduunkan uu ku kasbaday loo abaal marin doono fa in kaana khayran aw sharran haduu khayr yahay wuxuu sameeyay ama haduu shar yahayba ilaahay subhanahu wa ta'ala wa kana leeyahay wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah war maalinka baqaad ilaahay xaqiisa u laaban doontaan turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin
naf kastaana la abaalmarini doono waxay kasbatay ee adduunkan ku kasbatay fa in kaana khayran hadduu khayr yahay khayr bay helaysaa ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa wa in kaana sharan hadduu yahay waxay kasbatay shar hadduu yahay iyo xumaanna halkaas ayaad ka kasbani doontaa marka maadaama waxa hadda aad samaysay ee afcaale ama aqwaale ee hadda samaysay lagu qabani doono lagu qoraayo waxaa la doonayaa walaalayaal waxaad qoranayso inaad ka dadaashid oo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa aad wax maaragtay wanaagsan aad horumarsatid waxa wanaagsan ee hadda samaysid waa wax horumarsatay ee meel ku yaalo hadduu yahay sadaqo hadduu yahay salaad hadduu yahay wanaag hadduu yahay biri kelimad wanaagsan maaragtay waxa khayra ee wanaagsan aad samaysatay oo dhanba ama dhib la reebay waxaasoo dhan waxaa wax ku yaalo ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala kuuna qoran buugaada iyo maaragtay kitaabkaada kugu qoran maxay la walaalayaal waxaad ogtihiin qof kasta in ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa kitaab liisa seeni doono qof kastaana wuxuu ku kasbaday kitaabka ayadaa ugu yaalo wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala markuu ka hadlaayo faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haa umqra'uu kitaabiya dadkii maaragtay kitaabkooda laga siiyo gacanta midigta ah dadka laba qaybood ay noqoni doonaan qolo waxaa laga siin doonaa kitaabkooda gacanta midig qolana kitaabkooda waxaa laga siini doonaa gacanta bidax ilah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala marka faama man uutiya kitaabahu biyamiini qolada kitaabkooda gacanta midigta laga siiyey ee wanaag sameeyey saalixaadka maaragtay acmaasha saalixaadka sameeyey sadaqaadka iyo xiriirinta iyo qaraabadooda xiriiriyey wanaag badan sameeyey bisha ramadaan soomay habeenkaas leylatulqadriga addadaalay oo maaragtay fadaa'il badan la yimaaday dadka ayakaa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkooda wuxuu ka siinayaa midigta markii midigta laga siiya iyo waxay odhani doonaan haa umqra'uu kitaabiya warhooda kitaabkayga akhriya ya kitaabkayga waa kane akhriya ya saasay odhanayaan amaa qolada kale oo ilaahay subxaana wa tacaala ku caasisay bisha ramadaan xurmadeedii iyo waxeedii maarad ku xadgudbay macsiya iska dabaashay adduunka markuu joogay lahwiga iyo heesaha iyo xumaanta iyo wixii maaragtay ilaahay ka reebay oo dhan maaragtay dabaashay qoladaas ayakaa kitaabkooda waxaa laga siini doonaa gacanta bidixda ayaa laga siinayaa wa amaa man uutiya kitaabahu bishimaalihi fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya walam adri maa xisaabiya yaa laytaha kaanat alqaadiya maa aghnaa canii maaliya halaka canii suldaaniya calaacalkaas ayuu fakani doonaa qofka asaga intayna ku qabsanin walaalayaal waxaa la doonayaa arrintaa ayadaa inaad ilaahay subxaana wa tacaala u tabarucdo dunuubtii aad gashay oo ood soo kasbatay inaad ilaahay subxaana wa tacaala weydiisato inuu ilaahay kuu dhaafo subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala marka dadkii dunuubtaas galay hatan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna siiyey fursad oon ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa haddaan u laabanno uu maaragtay noogu dhaafayo fursooyin fara badan uu ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey fursadaasuu na siiyey allah subxaana wa tacaala waxaa ka mida bishan ramadaan ee kheyrka badan ee fadaa'isheeda niigala soo sheekeynaya intaasoo berye ah iyo wanaageeda iyo kheyrka ay leedahay iyo sidii lagu kasbani lahaa bisha ayada ah fadaa'isheeda yaa waxay ka mid tahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu dhaafo walaalayaal dunuubta iyo dembiyaasha aad gashay oo dhan bisha ayada ah marka dhexdeeda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sii dhigay haddana habeenaha kale o dhan ka khayr badan yaa habeen oo dhan ay ugu khayr badan tahay bisha ayada gudaheeda yuu ilaahay subxaana wa tacaala uu sii dhigay ilaah wuxuu yidhahda bisha ayada ku magacaabay leylatulqadri bisha ayada fadaa'isha ay leedahay habeenka asaga fadaa'ishuu leeyahay habeenka asaga ee leylatulqadriga ah fadaa'ishu uu leeyahay waxaa ka mida walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkeena munazalka inuu ilaahay subxaana wa tacaala noo soo dejiyey fadliga koowaad ay dheer tahay habeenada kale waxaa weye inuu ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka qur'aanka uu soo dejiyey ilaah uu leeyahay subxaana wa tacaala inaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka inaa kunaa mundiriin le ilaahay subxaana wa tacaala waxaan maaragtay inaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka waxaan soo dejinay habeen barakaysan maaragtay uu leeyahay allah subxaana wa tacaala aayad kale ilaah waa kan kulaa inaa anzalnaahu fii leylati alqadri wamaa adraaka maa leylatu alqadri ilaahay subxaana wa tacaala marka habeenka asaga wuxuu noo soo dejiyey kitaabkeenna munazalka ah ee kitaabkeenna khayr ka badan kitaabkeenna shifaau lqalbi waljismi ay ku jirto caafimaadka aan ka heli karno dhammaantiisa jirooyinka o dhan laga caafimaado amraasha ay takhtariinta daaweyn karin ee qalbiyada ku dhaco dhan daaweynayo yuu ilaahay subxaana wa tacaala noo soo dejiyey walaalayaal kitaabkeenna qur'aanka ee munazalka ah oo ilaahay noo soo dejiyey waxaa la doonayaa in laba laabo marka akhrintiisa
iyo ku dadaalkiisa iyo barashadiisa iyo hagaajintiisa iyo maaragtay sharfidiisa inaan ku dadaalo oo kitaabkeena qur'aanka aan ku ruqaadna la doonayaa ilaah uu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaan idiin soo dejinay habeenkaas barakaysan fadliga ay leedahay marka waa kitaabka maaragtay la doonaayo oo nooga waramay wixii hore ee tagay waxa hadda joogo iyo waxa soo socdo dhan ila kitaabkaas nooga waramay oo kaamilka ah yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhexdiisa soo dejiyey yaa oo shifaha iyo naxariista ay ku jirto kitaabka qur'aanka ninkii akhriya ee ku dadaalo ajir fara badan ayuu leeyahay nabigeena suban sallallahu alayhi wasallam xadiid ayuu wuxuu leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam ninkii akhriya aayad ama xaraf min xaraf maaragtay kitaabka ka mid wuxuu leeyahay 10 darajo ayuu leeyahay alif laam mim alifka iyo laam iyo mim saddex xaraf ay ka kooban tahay xaraf kasta waa 10 ajir ayaad leedahay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa la doonaya in loogu dhowaado habeenaha la sii laabo akhrinta aad badisid bishan waa bishii ramadaan waa bishii qur'aanka in lagu dadaalo akhrintiisa iyo ku dadaalkiisa la doonaya bishan ayada habeenkan asaga cadamada iyo sharafta uu leeyahay ilaah waa kan leeyahay subxaanahu wa tacaala wama adraaka ma laylatul qadri shaniga iyo maarta habeenka asaga ilaahay subxaanahu wa tacaala war maxaa ku ogeysay habeenka asaga maxaad ka garanaysaa waa habeen fadligiisa iyo maartay wixiisa oo dhan uu aad u weyn yahay habeenka asaga khayrkiisa aad u badan yahay habeenka asaga raxmada iyo naxariis badan ee taalo waa habeenka asaga maxaad ka garanaysaa marka habeenka asaga cibaadadii la sameeyo marka fadaaisha uu leeyahay waxa weeye habeenka asaga cibaadadii la sameeyo yaa waxay ka khayr badan tahay cibaadooyinka kale oo bilaha kale la sameeyo fi 1000 shahr kun bilood ay ka khayr badan tahay kun bilood ay ka khayr badan tahay laysa fiha laylatul qadri ya kun bilood oo habeenka laylatul qadri ku jirin kun bilood ay ka khayr badan tahay habeenka asaga ya habeenka asaga waa hal habeene oo kun bilood ka khayr badan marka wax yar ma aha marka kun bilood bal xisaabiya kun bilood min qaydan waxay leeyihiin culimadu waxay ku qiyaaseen 83 maartay 83 sano iyo bila taas weeyeen marka waxa la doonayaa bisha ayada inta ayada waa cibaado aad sameysay oo maartay inaad gaari doonto cimrigaada inuu gaari doono in kale aan la garanayn ka waran marka daad heshid ramadaan kasta baad daad heshid 20 sano daad nooleed 20 sano bisha maartay ay kugu soo toostay 20 sanaba adoo taagan iimaanan wa ihtisaaban adoo ajir gurubsanayso oo rumaysan hadaad bisha ayada aad haleeshid bal ka waran faa'iidada helayso marka wax yar ma walaalayaal fiiriya waa fursad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu na siiyey walaalayaal lana doonayo bisha ayada inaan ka faa'iideysano bisha ayada malaa'ikta ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenka asaga dhaxdiisa waxa soo degaysa malaa'ikata tanzil fi hadhihi al-layla habeenka ayada waxa soo degi malaa'ikta ya malaa'ik ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa soo degaysa rahmada ilaahay subxaanahu wa tacaala soo degi baraka ayaa maartay habeenka asaga soo degaya xasilooni ayaa soo degi iyo maartay habeenka asaga waa marka habeen khayrkiisa aad u badan ya culimada heleen qila tanazzalu bihi fi hadhihi al-layla waxa soo degaysa habeenka asaga barakaat oo dhan iyo nicmooyin oo dhan ayaa soo degaysa marka habeenka asaga waa in maartay laga faa'iideysto bimaana amr biqada'i illahi wa qadarihi ilahi subhanahu wa ta'ala wa habeenka la jaangooynayo wuxuu dhan la qadarayo ya fiha yufraqu kullu amrin hakim arrin kasta oo hakim ila ayaa la kala saaraya yufraqu fiha kullu amrin hakim ila wa kam li amrun min indina inna kunna mursilin marka habeenka asaga ay fadligaas iyo khayraadkaas iyo nicmadaas badan leeyahay walaal waa inaan ka faa'iideysano habeenka asaga amni ayaa ku jirta gudihiisa nabadgelyo iyo salaam ya salaam ayaa ku jirta habeenka asaga iimaan li ahli iimaan iskaleeyeen leeyahay anna al-amn was-salama bima'na ay helaya yahsul fi hadhihi al-layla ala ahli al-iimaan dadka ahli al-iimaanka ee muslimiinta habeenka asaga waxay helayaan naxariis caafimaad nabadgelyo wanaag iyo khayraad badan ayaa gudihiisa ku jirta habeenka asaga marka waxa la doonayaa inaan ku qaabilno qaabkii nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wasallam uu ku qaabili jiray nabigeena 10 ka daba markii la soo gaaro sida xadiis saxiixa nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wasallam ka sugan nabigeena uu istaagi jiray habeenka asaga guntigiisa ayuu maartay adkeysan jiray habeenkaas oo dhan ayuu nooleeni jiray waxa la doonayaa habeenkii inaan nooleeno cibaadad quraan akhris salaad iyo maartay tasbiix iyo salli iyo wanaag badan iyo khayraad badan iyo sadaqooyin inaan habeenadan iyada ku nooleeno bisha aan raadino habeenka asaga aan raadino la doonayaa ya habeenka asaga inaan raadino la doonayaa
xadiid abaa hureyra laga wariyey radia allahu canhu ayaa wuxuu leeyahay nabigeena subana sala allahu calayhi wasalam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu man saama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu ninkii sooma bisha ramadaan isagoo rumaysan oo qalbigiisa ka rumaysan waajib ilaahay subxaanahu watacaala waajibadiisa saaray gudanaya oo ruknan arkaan alislaami ka mida ninkii isagoo rumaysan sooma iyo ajir gurubsanayo oo ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa ajir ka raadinayo ninkii sooma gufira lahu dembigiisa ayaa loo dhaafaya maa taqadama min dembihi waxa dembi uu hormarsaday oo dhan ayaa loo dhaafaya fursa ghaaliya thamiina waa furso aad maaragtay u weyn maaragtay aanan lagu heli karin lacag aanan lagu heli karin xiilad aanan lagu heli karin karti ilaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku haleelsiiyo maahine marka waxaa la doonaya fursadda ayada inaan ka faa'iidaysano ilaahay subxaanahu watacaala aan barino inuu ilaahay subxaanahu watacaala inuuna haleelsiiyo annagana aan dadaal badan aan samayna la doonayaa soonkeenna aan ilaalsanno khayraad badan aan raadinno afkeenna iyo adinkeenna indheheenna inay bishan ayada ah laga soo maaragtay aan ilaalina la doonaya walaalayaal xadiidka asagaa nabigeena asagoo sii wada wuxuu leeyahy waman qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembihi nabigeena sal ll slam saasuu leeyahay ninkii istaago man qaama leylata alqadri ninkii istaago iimaanan waxtisaaban asagoo ajir gurubsanayo qofkii istaaga ee salaad u istaago ilaahay subxaanahu watacaala hortiisa istaago tadarucan ila allahi tabaaraka watacaala asagoo ilaahay subxaanahu watacaala isku tadarucinaayo isku dullaynaayo ilaahay subxaanahu watacaala baryaayo ninkii istaaga wuxuu leeyahay gufira lahu maa taqadama min dembihi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u dhaafayaa dembigiisa waxa uu hormarsaday oo dhan ayaa loo dhaafayaa fursa waa fursad aad u weyn walaalayaal xadiidkaas maaragtay bukhaari iyo muslimba way soo saareen waa xadiid saxiixa waxaa la doonayaa walaalayaal inaan ka faa'iidaysano fursadaa ayada ah ghaaliga ah ee thamiinka ah waxaa la doonaya in fursadaas ayada ah aan ka faa'iidaysano ilaahay subxaanahu watacaala hortiisa aan istaagno iimaanan waxtisaaban middaa ayada inaan raadina la doonaya walaalayaal ya inaan raadina habeenkaa asaga inaan raadina ayaa la doonayaa habeenkaa asaga intuu ku jiraa kow habeenkaa asaga laa shakka fiihi ana leylata alqadri fi ramadaan habeenkaa asaga shaki kama jiro inay bisha ramadaan gudaheeda ay tahay midaas waa wada rumaysannahay bisha ramadaan gudaheeda wey ilaah waa kan u leeyahy subxaanahu watacaala inaa anzalnaahu fii leylati alqadri inaa anzalnaahu waxaan soo dejinnay kitaabka qur'aanka ee munazalka waxaan soo dejinnay fii leylati alqadri habeenkaas ayaan soo dejinay leeyahy ilaahi subxaanahu watacaala habeenkaas soo dejiyey 17 markay tagtay bisha ramadaan yuu ilaahay subxaana watacaala kitaabkeena qur'aanka soo dejiyey munazalka xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay habeenkaa asaga ah culammada markay ka hadlaayeen markuu ka hadlaya habeenkaa asaga ah leylatu lqadriga macnaa waxay leedahay taxdiidkeeda halkuu ku jiraa marka habeenkaa asaga waxaan isku waafaqnay inuu bisha ramadaan ku jiraa taxdiidkeeda iyo waktigeeda iyo halkuu ku jiraa culummada waxay isku khilaafeen uu leeyahay 40 aqwaalan qowlooyin fara badan aqwaal fara badan laakiin hadda aqwaashaas iyada ah maaragtay asaga uu soo guuriyey sheekha ninkii raba magaciibtiisa iyo wixii dhan wixii ka qabaan culammada dhan ayuu soo guuriyey ninkii raba dib ayuu ugu noqoni karaa kutubta laakiin waxaan rabnaa inaan ka tilmaamno intaan ka raadinaa ee nabigeena subxaana sallallahu alayhi wasallam uu sheegay sida badan ee culummada leeyihiin dhammaantooda isku waafaqsan yihiin intooda badan waxay leeyihiin waxaa laga raadinayaa fi 10 al-awaakhiri min ramadaan tobanka dambe ee bisha ramadaan ayaa laga raadinayaa waxaa ku tusinaya xadiidkii uu wariyey abi saciid alkhudri radia allahu canhu uu leeyahay nabigeena subxaana sallallahu alayhi wasallam macnaa fabtaguuha bimacnaa fi 10 al-awaakhiri waxaad ka raadisaan eed ka maaragtay ka dada'daan tobanka dambe ka raadiya tobanka dambe ka raadiya uu leeyahay waa xadiid bukhaari iyo muslim ay soo saareen marka waxaa halkaas ayuu ku jiraa waxaa la doonaya tobanka dambe in laga raadiyo tobanka dambe in laga raadiyo riwaayooyin kale ayaa sii qabteen waxay yidhahdeen maaragtay oo riwaayad kale ayagana wuxuu leeyahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam ka sugan wuxuu leeyahay taxarraw leylata alqadri fi lwitri min alcasharati alawaakhiri min alcashri alawaakhiri waxaad ka raadisaan witirka habeenaha witirka ah ee tobanka dambe bukhaari ayaa soo saaray xadiidka asagana maaragtay waa xadiid sii khasisaayo habeenaha tobanka dambe haddana tobanka asaga habeenaha witirka ah kasii raadiya
marka sida fadliga badan khayrka badan waxaa la doonayaa habeenahan ayakaa inaan dadaal badan ku samayno habeenka o dhan taagnaano ilaahay subxaanahu watacaala aanaa alleyl wa atraafa annahaar oo dhan habeenkii labadiisa dhinacba inaan ilaahay subxaana watacaala barino oo ilaahay subxaana watacaala aan weydiisano inuu habeenka asaga khayrka badan uu ilaahay subxaana watacaala na haleelsiiyo habeenka asaga inuu na haleelsiiyo maaragtay nabigeena sal ly slam marka tobanka dambe aad ayuu ugu dadaali jiray waxaa la doonayaa walaalayaal inaan hal iska fiirino inaad dhahdid habeenaha witirka abes ayaan raadini aniga waxaa la arkaa halka habeenka aad raadinaysa inuu maaragtay ku dhaafoba inuu ku dhaafo habeenka asaga marka waxaa la doonayaa tobankan dambe waa qeybba tagtayba hadda inta soo hartay inaan ku dadaalo ilaahay barino ninkii hareera habeenka asaga muxuu samayne umuna caasha radiallahu canha ayaa nabigeena suban sala allahu calayh wasalam weydiisay waxay tirahda yaa rasuulullah habeenka haddaan haleelo maxaan dhihi maxaan dhahaa wura ay tiri umuna caasha radiallahu canha habeenka asaga haddii aan raadiyo annaga waxaa la arkaa dumarkeena inay iska hurdayaan guryahayna iska wada jiifaan maalintii oo dhanna ay rafaadsan yihiin saambuus iyo cunto karin iyo alaaba maaragtay ay isku rafaadinayaan habeenkiina khayraadka faraha badan ay ka hurdayaan maxaana qof maanta o dhan dab ku jiray rafaade waaye bishan ayada walaalayaal waxaan maaragtay idinku boorinayaa in khayraadka laga faa'iidaysto gabdhaha qur-aanka akhriya qur-aanka barta qur-aanka ku dadaala maamooyinka weyn qur-aanka barta qur-aanka ku dadaala waxa cibaadada ilaahay loogu dhowaado waxaa ugu weyn kitaabka qur-aanka kariimka kitaabka qur-aanka ugu weyn marka kitaabka qur-aanka akhrintiisa iyo maaragtay barashadiisa maaragtay midaas ayadaa cibaada taa ayadaa in lagu dadaalo qur-aanka la akhriyo salaadaha loo istaago la tukado la saxdo salaadaha culimmada loogu wada dhow in qof kastaaba salaadihiisa cibaadaadkiisa uu saxdo salaadaha saxo cibaadaadka inta waxaa la doonaya qof kastaa inuu maaragtay hogaamin looga noqdo ma aha waa inuu asaga barto adiga baro culamada agtaada joogta xaafad kasta waa laga helayaa qof nii baro marka waxaa la doonaya dumarka waxaan u dardaarmayaa in cibaadada iyo maaragtay diinta la barto diinta in lagu dadaalo diinta marti laga noqonin in la weydinin culammada war sheekhow maxaa dhacay waxaan muxuu yahay saan haddaan sameeyon culammada maaragtay in la weydiyo waa sax laakiin waxaa la doonaya annagana inaan baranno oon ku dadaalno waxyaalaha maaragtay buruuriyaadka ah sidai cuntadaba buruuri u tahay ayay diinta waxyaalaha cibaadadana ay buruuri u tahay waxa salaadaada maaragtay kugu ansaxmayso iyo wixii kaa jebinaayo soonkaada waxa kugu ansaxmayo wixii kaa jebinaayo cibaadaadka dahaarooyinka oo dhan waxaasoo dhan waa waajib inuu barto qofku marka waxaa la doonayaa inaan baranno bal taas ayada lagu dadaalo umuna caasha radiallahu canha ayaa nabigeena weydiisay suubanaha sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu ku yidhi sal allahu alayh wasalam caashoy haddaad aragto waxaad tidhahdaa allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cana saas dhe taas dha yidhaahde ducadaas in la barto lagu celceliyo lagu dadaalo ilaahay subxana watacaala cafis weydiis la weydiisto ayaa la doonayaa habeenahan ayagaa bisha naarta ayaa ilaahay subxaana watacaala ayuu ummadda ka xoreeyaa in ilaahay aan barino ilaahu naarta naga xoree ilaahu ehelkeenna iyo caruurteenna iyo annaga iyo waalidiinteennaba ilaahu naarta ka xoree waalidka in loo duceeyo khayraad badan la sameeyo la doonayaa tobankaas dambe ayay ku jirtaa tobanka dambe ayay ku jirtaa lamana sheegin habeenka asaga riwaayoyin badan ayaa soo arooray adilada iyo xadiidka tilmaamaya hadda 27 iyo maaragtay habeenadaas ayada habeenka asaga wuxuu leeyahay markaa laylatul qadriga calaamaad ayuu leeyahay lagu garanayo qofku ilaahay haleelsiiyo habeenka asaga wuxuu leeyahay calaamaad lagu garanayo waxaa ka mid ah inuu noqdo jawiga iyo hawada habeenka asaga hawa macnaa munaasaban riixdiisa iyo dabeyshiisana ay degan tahay ee degan inuu yahay habeenka asaga waxaa tilmaamay xadiidkii ibnu cabaas laga wariyey radia allahu canhu nabigeena sugan sal ly slam wuraade leylatu lqadri leylatun samxa dalqa laa xaara walaa baarid tusbixu ashamsu sabiixataha daciifatan xamraa xadiidka asaga waxaa soo saaray akhrajahu dayaalisi ayaa soo saaray wibnu khusayma ayaa soo saareen walbazaar wuxuu leeyahay habeenka asaga leylatulqadriga waa habeen samaaxadiisa ay badan tahay waa habeen degan maaragtay kuleelna aanan lahayn qabow iyo qarqarna aanan lahayn habeenka asaga wax dhaxane wax qarqara wax qabow ah aanan lahayn habeenka asaga
habeenka asaga ah subaxdiisuna ay qoraxdu soo baxayso sabiixataha daciifatan iyadoo tabardan xamraa'an ee gaduudan bimacnaa say kusoo bixi jirtay iftiinkii iyo maaragtay ilaaskii faraha badnaa ay lahayd ayna lahayn waa habeen maaragtay daciifatan xamraa uu leeyahay habeenka asaga ah ay maaragtay calaamaadka ay leedahay leylatul qadriga lagu garanayo ay ka mid tahay waxay ka mid tahay habeenka asaga ah waa habeen degan oo xasilooni ah dhib badan iyo wax badan lagaysan jirin ay soo degayso malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenka asaga ah malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa soo degaysa dumaaniinatul qalbi la wada helayaa dadkan qalbigoodii iyo waxoodii uu dego xasilooni iyo argagax la'aan ay leedahay habeenka asaga ah habeenka asaga ah waxaa la arkaa in dadka in barkooda ay ku riyoodaan sidii ka sugan saxaabada barkooda nabigeena saxaabada maaragtay ay maaragtay oo riyoodi jireen waa habeen la arkaa inaad riyo ku aragtid habeenka asaga ah laakiin hasdii habeenka hadaad riyootid oo riyadii aad aragteed waad riyootay habeenka asaga ah bas uu dhammaaday cibaadaadkaadii iyo intii kalena ha joojinin waxaa la doonaya cibaadaadkan in lagu dadaalo oo habeenka asaga ah la sii wado dadaal badan la sii dadaalo habeenka asaga ah waxaa ka mid ah calaamadaha lagu garanayo تطلع الشمس صبيحتها سافية لا شعاع فيها لها بمعنى هبينك أساق وهبين قرحدو صوبحيسو صبحيسو أيضو سافئة وح شعاع يوحاسنا آنا لهين أي صوبحيسا هبينك أساق وحديث كان أبي بن كعب نبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها وهبينك أساق صوبحيسا أيضو وح شعاع يوحا آنا لهين بمعنى أو سافئة يصوبحيسا حتى ترتفع إلى سكر نقطه وهبين نوع أساسا مرك على مدى سيوليهي وحن مارتي حديثة مسلم يا سو صاري وحن إذن دردار ما نفتي دي إيتينا وورا ريال وحلا خير كبرن ولا فائدة هبين هنا إذا أنك فائدة سنو خير كاس أن رادنو بركة النعمة سان أهلنا دعاء برنا إلهي أن برنا سجودا إلهي كبرنا سبحانه وتعالى إلهي وحن ودي سنيا idinkii annaga ba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteenaba habeenkaasna wada haliilsiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dhigo dhammaanteenaba intuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naarta ka xoreeyey ilaahu naarta naga xoree dadkii ay ummadaada bishan ayada naarta laga xoreeyey allah nagu daro ilaahu nagu daro wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam waa tahay sheekh ajir xasanadaan la soo koobi karin allaha ka sii anagana kuwii ka faaidaysa allah naga dhigo weliba waxaad nagala socotaa radio gargaar madasha arrimaha biniaadamada waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeeni waanada sheekha fadaaisha bisha barakaysan ramadaan kaga hadlaynay oo maanta markaasi looga hadlayey faa'iidada uu leeyahay habeenka lagu magacaabo leylatulqadr oo markaasi ku guda jiro bishan barakaysan ramadaan tobanka dambe dhegeystayaashaan qabadka u furi doona haddii abina dhegeystaha u horeeya khadka ku jira haddii aanu baaqo halo gargaar dhegeystahaasi qad teleefonka ayaa ka hiiliyey mar kale soo beegso ayaanu leenahay dhegeystaha kale xiga ee qadka ku jira haddii aanu baaqo halo gargaar wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu al magaca halkana soo eesid xaliimo xarid qaxootiga ifo su-aashaada waa weydiin kartaa weydii waxaan rabaa inaan weydiiyo walaal waxaan jecelahay mar walba in aan tukado qadarka inay hadday ahayn iyo haddii kalaba salaatuleylka inaan tukado waa tahay waxaan arkayaa salaatuleyl saan niyada ugaa inaan soo kaco anaa horta ila tagtay oo wakti dambe salaada subax soo kacay waa tahay marka maxaan dhihi karaa ma khayr may ii noqoni kartaa su-aashan sheekh weydiinaya waa tahay aad u mahadsan tahay dhegeystaha kale xiga ee qadka ku jira haddii aanu baaqo halo gargaar halo gargaar waa tahay dhegeystahaasi qad teleefonka ayaa ka heliyay xigaha kale halo gargaar assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu xaliimo xagga dheer su-aasheeda su-aashii bilaha sheekh waa nin salaamaya markii hore waynu kaa qaanay salaantaas mid lama dhaawada kusoo marina waqti ma hayno marka laylatul qadriga salaada oo taraawiida guriga ma ku tukun karaa anagoo dumar intaasaa weydiin lahaa tahajudka tahajudka guriga ma ku tukun karaa masaajidka ma aadi karee waa tahay aad umahadsan tahay xaliimo nagala soo xiriirta xaalada qaxootiga xagardheer ay ahayd salaada tahajudka xaafad ma ku tukan karaa aad bay umahadsan tahay dhegeystaha kale xiga qadka ku jira haddii aanu baaqo halo gargaar
halo gargaar waata dhegeystaha siiqa telefoonka ayaa ka heliyay mar kale soo beegso ayaynu leenahay dhegeystaha xiga ee qadka ku jira halo gargaar تشفيني من الذنب فأدعو الله يا مولاي أمي نجها وأبي نجها dhegeystaha xiga ee qadka ku jira haddii aan u baaqo halo gargaar halo gargaar السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا المقع halka naga soo wacaysid magacayga caasho nuur baa leedahay caasho nuur xalade waa ifo kusoo dhawo barnaamijka su-aashaada su-aasheeda sheekha aan weydiinta waxay tahay neef baa 3 sano aan hayaa neef baa 3 sano aan hayaa waa tahay neefka idaaladii miya neef waa ri oo 3 sano aan hayo waa tahay waan yaadiyey ilaa hadda wax soo sheegta ma arag waa tahay hal neef baa dhashay neefkii waan gaday masaajidadan ugu gaday dermo waa tahay hadda waxar bay dhashay waa tahay neefku wuu ii joogaa waa tahay ku yaroo ani aan dhalay hadda wuxuu leeyahay ilaa waxartii baan gadanaya aan leeyahay waxa anaka madiina naga daa haye marka hadda inaan gadano ma noo bannaan tahay mise dembi baa noogu jira waa tahay inkastoo barnaamijka ay barnaamijka ka tahay haddana sheekh ayaan u wareejin doonaa haddii biidmo su-aashaasi aad bay umaasan dhegeystahaasi nagala soo xiriir taariikhda qaxootiga dhagaxley saan filaya dhegeystaha kale xiga ee qadka ku jira haddii aan u baaqo halo gargaar halo gargaar halo gargaar dhegeystayaasha 2 daqiiqa ayay haystaa markaasi su-aalahooda ay kusoo gudbin karaan waqtiga kooban awgeed dhegeystaha xiga ee qadka ku jira haddii aan u baaqo halo gargaar halo gargaar ودلال الهدى قلبي وبالقرآن حياتي في كتاب الله ألوان من الحب dhegeystaha xiga ee qadka ku jira haddii aan u baaqo halo gargaar halo ha walaal magaca halka naga soo wacaysid waa cabdullaahi jifo cabdullaahi jooga xarid qaxootiga ifo waxaan weydiinayaa sheekh anoo sooman waan istoobi karaa anoo sooman maan istoobi karaa ma istoobi karaa haa cabdullaahi aad baad u mahadsan tahay cabdullaahi nagala soo xiriir xarid qaxootiga ifo ayuu ahaa kaasi anoo sooman ma la itoobi karaa ma istoobi karaa aad buu mahadsan yahay dhegeystaha kale xiga ee qadka ku jira haddii aan u baaqo halo gargaar halo gargaar wataa dhegeystaha siiqa telefoonka ayaa ka heliyay su-aalaha ayaan gordhow u gudbi doonaa haddii abinmo mashaayiqda istuudiyaha martida inooga ah الأجر يا ربي نور دربي ودلال الهدى قلبي dhegeystaha xigaha qadka ku jira uguna dambeeya halo gargaar halo salaam calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaa xamdi oo isu joogta حاوى حمدي إيفو سؤال شاذ sheekha waxaan weydiinaa qof sooman oo hadda xanuun suuxdimo camal qabo ruuxii u soomanaa xanuunka ayaa وتهاي حمدي قف صوحمن مدي صوحدون أي قبطي مركاسي سؤال شاذ مدام يسرنا شيخ عبد الحكيم أقول كوريجين دون هدي بين وقت وكوما نوجي نجها وأبي وشفع فيهما القرآن يوما وتهاي هاتان waxaan siin doonaa haddii beedmo sheekh cabdixakiim sifo markaasi su-aalihii dhegeystayaasha ayna soo weydiiyeen ugu jawaabo kadibna waxaan soo xiri doonaa ama soo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni fadaaisha bisha barakeysan ramadaan sheekh cabdixakiim haye kusoo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات إله ومهد سكله تبارك وتعالى maanta suukaya keenay meeshaan iyada idaacadda raadiyo gargaar marka labaad waxaan u mahad celinaynaa walaalaha bahda raadiyo gargaar intaas kadib muxaadaradii allaha nagu anfaco sheekha uu inoo soo jeediyey ee ku saabsanayd fadaaisha cashar alawaakhir iyo leylatulqadriga khaasatan ilaahay subxaana wa tacaala hanaga dhiga kuwa ilaahay waafajiyo khayrkeeda iyo barakadeedan ilaahay siiyo tabaaraka wa tacaala intaa kadib su-aalaha maanta way koobnaayeen runtii waxaa ugu muhiimsanaa maalinka maantay xaliimo oo min ifo naga soo wacday xaliimo waxay tidhi
waxaan aad u jeclahay inaan tukado salaatuleylka waan ku seexdaa inaan kaco haddana sida ay tahay hurdada ayaa ila tagta mana ii suurowda inaan tukado maxaa markaa aan heli kara oo ajar ah nabiga sala allahu caley wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi qofkii hamiya wanaag oo wanaaggaa qabta haddee wanaaggii waa loo laalaabaya ajar badan buu ka helayaa haddii wanaaggii uu hamiyey ama uu damcay maaragtay isaga niyadiisa ahayd inuu qabto ay u suuroob weydo inuu wanaaggii uu qabto ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qorayaa hal wanaag buu u qorayaa marka xadiiska isagaa waa saxiix nabigu ka sugnaaday niyadaada hadday ahayd inaad u kacdo salaatuleyl ama salaatu taraawiix ama tahajud wixii cishaha kadib la tukado oo sunno ah ay hurdo darteedna kula tagtay waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa inama atafriidu fi lyaqda laa tafriida fi lyaqda inama atafriidu fi nnowm yacnii tafriidka iyo gaboodfalku inta badan waa soo jeedka oo qofka ama waajib ha uga tago ama sunno uu tukan lahaa laakiin mar hadduu intuu seexday uu rabo inuu soo kaco sidaa ay ku dhaaftay ajar baa loo qorayaa ku dadaal laakiin inaad tukatay insha allahu tacaala xaliimo kale oo xagadhee naga soo wacday waxay tidhi salaatuleylka ma ku tukan karaa gurigeyga masaladaas waa markii waxaa malaynayaa dhowr jeer baa la soo weydiiyey ama shanaad ama lixaad gabdhaha muslimaadka ah waxaa u fadil badan inay guryahooda ku tukadaan nebiga sal ly slam xadiiskii wuxuu ahaa fa buyuutuhunna khayru lahunna aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam guryahooda u khayr badan haweenku inay ku tukadaan xataa faradka inay masaajidda aadaan waxaa uga fadli badan guryaha guriga laftiisa lasii kala sheego waxa meelba meeshay kasii qarsoon tahay inay ku tukataa gabadha u fadli badan saa darteed xilli waxaa lagu jiraa zaman fitna ah khaasatan habeenkiina socodkiisa waa adag yahay gabdhaha waxaa fiican inay guryahooda ku tukadaan sidaasaan u khayr badan caaisha nuur oo naga soo wacday ifo waxay tiri neef baadi ah ayaan hayaa 3 sano ayaan hayay da' buu dhalay da'dii uu dhalayna waan sadaqeeyo masaajidan geeyo markii horeta waan yaahiyey bay tiri da' buu dhalay da'dii uu dhalay waan gaday masaajidan gogol u gaday da'dii labaad hadda uu dhalayna way joogtaa ma gadan karnaa ma ku intifaaci karnaa sideedaba baadida waxa weeyaan in la yaahiyo ayaa waajib ah markaad heshid khaasatan xoolaha waad garanaysaan oo ariga nebiga sal ly slam baadidiisa uu ka hadlay wuxuu yidhaha maadaa iska leh ama dhurwaaba iska leh saa darteed neefka baadida ee ariga ah lama cayrinayo waa la soo qabanaya waa la yaahinaya waxa weye yani waxa weeyaan baafin baa la gelinaya ama idaacadaha ka baafi ama meelaha xoolaha isugu yimaadaan ama dadka dhexdooda sanad baad baafinaysaa sanad kadib haddii lagaa soo doonan waayo xoolaha iyada ah waad isticmaalaysaa laakiin isticmaalka isaga niyada waxaad gashanaysaa haddii maalin maalmaha ka mid uu ku imaado adigoo maaragtay garanaya baadidii tilmaanteedii neefka noocuu ahaa iyo siduu ekaa waad iska gudaysaa insha allahu tacaala sidaa wey marka waad isticmaali kartaa maadaama 3 sano aad yaahinaysay cabdulaahi oo ifa jooga wuxuu yidhi anoo ma istoobi kara anigoo sooman masalada toobinka ama xijaamada loo yaqaano nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu arkay 2 qof oo istoobaysa toobinka waaga hore qofka gees lo-aad baa lagu toobi jiray qofka inta meesha la saaro oo la saro ayaa la dhuuqi jiray oo sidaa hadda casriga qalabkan la buufinaya ma jirin saa darteed buu nabiga sal slam wuxuu yidhi marka afdara alxaajima waalmaxjuum kan la toobaya ka wax toobaya labadaba way afureen masalada iyada marka waa masale khilaafiya xadiis kaleo waxaa jira dhahaya yani nabiga wuu istoobay isagoo sooman oo xadiis saxiixa ah labada xadiis marka culummadu waxay kala qabaan waa masale khilaafiye ah sida raajixa laakiin qofka waa inuu istoobi karo sida culummadu ay maaragtay ay u xoog badan yihiin wuu istoobi karaa oo waxay la mid tahay dhiiggii qofka uu bixinaya oo kale xaawa xamdi oo ifa joogta waxay tidhi qof sooman hadduu suuxa ka warrama halkaa markay marayso ayuu khad ka go'ay qofka sooman hadduu suuxa suuxdinta waxaa loo qaybinaya 2 qaybood hadduu intuu niyeystay waagii u bariyey uu suuxay suuxdintaasna ilaa iyo gabalkii uu ka dhacayo afurkii uu suuxsanaa soonka isaga uma jira maalinkaasna waa lagu leeyahay haddii laakiin gabal ka mida maalinkii ama saacada ama daqiiqada uu suuxay kadibna uu soo miirsaday soonkiisu dhammaystiranayaa soonkiisana wuu u jiraa wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam waa tahay sheekh cabdixakiin aad buu u mahadsan yahay su-aalihii ayaan markaas barnaamij kusoo afmeerina barnaamijkana maanta waxaan kaga hadlayna markaas laylatulqadrika waxaan igala qayb qaatay sheekh cabdixakiin iyo weli waa macalin bishaar oo ka mid ah mashaaikhda xarada qaxootiga xagardheer intaan barnaamijkan kiisaka aan ku kulmi doono maalinta berita ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaa nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu